magaalada Burco ee gobolka Togdheer ee Soomaaliland wakaalada biyuhu waxay sheegtay inay horumar weyn ay magaalada ka sameysay sanadkii in dhaafay 2019 wax qabadkeeda ayay la wadaagtay bulshada Burco warkaasi waxa inooga soo diray magaalada Burco wariyaheena Cabdiqani Baafo wakaalada biyaha magaalada Burco ayaa maanta soo bandhigtay wax qabadkii uu qabsoomay sanadkii tagay 2019 munaasabad kooban oo lagu qabtay mid kamid ah howlalka ka dhac binaysan wakaalada biyaha ee magaalada Burco munaasabadan ayaa waxa goob joog ah wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale duqa degmada Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayaa faahfaahin ka bixinaya wax qabadkii uu qabsoomay sanadkii tagay 2019 waxaanu wakaalada kala wareegnay maalintan 13 ceel baa wakaalada u shaqeynayay maanta waxa shaqeynaya 17 ceel waxaanu ku soo kordhinay 4 ceel oo cusub 2 ceel oo wakaalada hore uga fadhiyay waanu kicinay ceel cusubna waxa qoday hay'adda UNICEF ceel cusub oo imika maanta xariga laga jarayna waxa qoday hay'adda World Vision oo ay kaashanayso fulinayso taakulo iyo wakaalada biyaha Burco hay'adaasi waxay naga bixisay $930,000 halkay wakaalada biyuhu ay bixisay $26,000 oo qalabkiya waxaanu kaloo maanta la wareegnay 11 gaari baa wakaalada kula wareegay maanta wakaalada waxa jooga 18 baabuur 7 baabuur oo cusub baan ku soo kordhinay wakaalada biyaha Burco oo model hore way dhici jirin wakaaladu waxay iibsatay gaadiid duuga laakiin 8 baabuur oo cusub oo brand new ayaanu ku soo kordhinay wakaalada waxaanu ku soo kordhinay xafiisyo 3 xafiis oo cusub oo maanta xariga laga jarayo waxaanu la wareegnay wakaalada 95,000 oo deyna maanta wax deyna oo lagu leeyahay wakaalada biyaha Burco ma jirto waa zero wasiir waxaanu biyo ballaarin ku sameynay 74 goobood oo magaalada biyaha Burco ugu ballaarinay oo aad iyo aad looga shaqeeyay maayirka degmada iyo barasaabka iyo taliyaha ciidanka qaybta booliska ayaguna dhankooda waxa amaan iyo bogaadin u soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi duqa degmada Burco Maxamed Muraad iyo sidoo kale wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye maareeyaha Cabdixakiin oo muddo sanadii waxoogay halka joogay wixii uu qabsoomay iyo waxa ay higsanayaan inay u qabtaan bulshada halkan maanta waxa ka cad dardaarankii inuu ka dhameeyay ballanqaadkiina inuu fuliyay laamaha dawliga ah ee gobolkan Togdheer oo wax qabtay oo wax wanaagsan qabtay oo soo bandhigay oo la marxaati ka ahaa annagana wax bay noo tahay ka maamulahan dadweynaha maamulka ku hoos noolna waxbay u tahay faanna way u tahay madaxda waxa kala hadii jeer kala sareysiya oo kala muujiya staafka la shaqeynayay madaxda ka hooseysa ee la shaqeynaysa maareeyaha iyo ku-xigeenkiisa dhammaanba shaqaalooyinahooda aad iyo aad baan idin hambalyeynaya waayo wax qabadku isma qariyo aqalka inuu ku jiro iyo intan aynu imika xariga ka jirayna xafiiskaba aan dhaafsanayn baa ka marxaatiya cid walba xilka saaran inay sideeda u gudato waajibka gudato wixii tabarteeda taniyo intii la soo magacaabay Cabdixakiin Maxamed Maxamuud maareeyaha wakaalada biyaha ee degmada Burco ayaa waxa mahadiyay bulshaweynta ku dhaqan magaalada Burco iyo sidoo kale xaafadaha koonayaasha magaalada kuwaas oo sheegay inay heleen biyo ku filan oo aan hore u soo gaadhin xaafadaha koonayaasha magaalada waxaanu ku hambalyeeynaa oo ugu ducaynaynaa oo ku tixgelinaynaa wax qabadka sharafta leh ee wanaagsan dawladana waxaan ka codsanaynaa markaanu amaanay u ducaynay inaanay naga qaadin ninka wanaagsan nooma quudhe Cabdiqani Baafo telefishinka caalamiga ah ee RTN magaalada Burco.